xilli guud ahaan dalka laga dareemayo gulufka dagaal ee markan la rabo khawaarijta in lagu ciribtiro muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa sidee maamulka fadhiidka ah ee 6 sano haystay Hirshabeelle oo caqabad ugu yahay dagaal walba oo lagu qaadi tago kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. maalmihii u dambeeyay dagaalo xoogan ayaa waxay ka dhaceen qaybo kamid ah gobolka Hiiraan, sidoo kalena gobolka Shabeellaha Dhexe iyana maalmo ka hor dagaalo ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda khawaarijta ah ku dhex marayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. labada gobol ee khawaarijtu ay sida baan uga dagaalamayaan dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ka arrimiyo maamul fadhiid ah oo gebi ahaanba haykalkii dawladnimo iyo hogaamintii laga rabay maamul goboleed gabay isla markaana bulshada in ay hoos u dhigaan mooyaane wax ay ku soo kordhiyeen haba yaraatee aysan jirin. hase ahaatee fadhiidnimadooda waxa uu dheer in ay caqabad ku yihiin howlgal walba oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama dadka deegaankuba ay isaga caabinayaan ama isaga celinayaan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. halkan waxaanu doonaynaa inaan ku soo gudbino dhowr arrimood oo muujinaya sida maamulka Hirshabeelle uu mar walba u curyaamiyo ama caqabad uu ugu noqdo howlgallada lagaga soo horjeedo kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. soo dhawaada saaxiibayaal. markaan dib ugu laabano dagaaladii 2022 kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab looga xureeyay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, maamulka Hirshabeelle waxa uu markaasi ku jiray xaalad naxdin ah oo uu ka xun yahay howlgalladaasi socda. waxa la xasuustaa hogaamiyaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen howlgalladaasi in ay aad u yareed saameynta uu ku leeyahay ama taageerada uu ka geysanayo oo uu kaga qayb qaadanayo dagaalka, isagoo laga waayay dhiirigelin, abaabul, xitaa howlihii la dagaalanka argagixisada lacagihii lagu helay ee maamulka Hirshabeelle isaga la soo marsiiyay oo afkii iska mariyay oo uusan la dagaalanka argagixisada haba yaraatee $1 uusan ku darsanin. mar walba oo khawaarijta la cirib tiri tago ama dagaal lagu qaado waxa uu sameyn jiray curyaamin, waxaana koow ka ahayd oo maragmadoonta ahayd xilka qaadistii hogaamiyihii hogaaminayay howlgalkaasi lagaga guuleystay kooxda argagixisada ah Mudane Cali Jeyte Cismaan ee uu ka qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan. intii ka dambeysay curyaamintaasi marba marka ka dambeysay waa ay soo socotay. hadda maalmihii u dambeeyay gobolka Hiiraan waxa ka jiray dagaalo xoog ah isla markaana dhowr maalmood halkaasi ka socday, isbuuc ku dhawaadna khawaarijta iyo ciidanka dawladdu ay mar walba foodi istarayeen oo dagaalo baan ay ka socdeen. maamulka Hirshabeelle kaalintii lagaga baahnaa ee dhiirigelinta ciidamadaasi howdka ku jiro isla markaana khawaarijta halkaasi ku baacsanayo waa ay ka gaabiyeen. gudoomiyihii gobolka Hiiraan waxa uu noqday mid iska hurda ee aanba ogeyn in dadkiisa iyo deegaankiisaba dagaal uu ku socdo. waxa uu noqday mid ka gaabiyay in xitaa dhalinyaradii gobolka Hiiraan ee iyagu doonayay in ay ciidanka la garab istaagaan heel iyo hoo taageerana ay u muujiyaan ay ka waayeen in uu gaari shidaal ugu shubo. wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle oo isaguna arrimahani ay aad u quseeyaan ayaa isna ka gaabiyay. mar walba waxa uu ka shaqeeyaa iska horkeenka maamulkiisa, waxaana jiro dhowr deegaan oo uu magacaabay ama uu xilal u magacaabay dad, sidoo kalena kuwii ka horeeyay uu ku yiri xilka idigama qaadin iska jooga, taa oo keentay in dhowr magaalo la isku qabsado maamulkeeda. taa waxa dheer dagaalada ay ka horiyaan mar walba deegaanada dadka walaalaha ay wada degan yihiin ee qabiilada ah. mar walba oo dagaal shabaab la galo waxa yimaada isku dhac dadka wada deganaa gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, halkaana ay ku dhex maraan dagaalo nasiib darro ah oo laga baaqsan karay isla markaana ay iyaga dhexdooda isdagaalaan. arrintaas oo mar walba isku soo aado ayaa calaamatu su'aal weyn waxa ay gelinaysaa kaalinta ay ku leeyihiin maamulka Hirshabeelle. su'aasha taagan ayaa waxay tahay Hirshabeelle waa maxay faa'iidada ugu jirto in Al-Shabaab ay markaasi carrada haystaan? falanqeeyaasha arrimaha amniga ayaa arrintaasi
waxa ay ku sababeeyeen ama ay ku sheegeen in ay tahay dan la xiriirto in maamulka Hirshabelle cimrigiisu uu sii dheeraado amaba in ay fursad u helaan in ay doorashada mar kale ku soo laabtaan xilligan oo dagaalo ba'an ay ka socdaan gobolada maamulka Hirshabelle hogaamiyahoodii Cali Guudlaaw Xuseen maalin walba waxa uu isaga jira sawiro iyo muuqaal duubis socodkiisa la soo duubayo heesa la soo dul saarayo baraha bulshadana lagu baahinayo isagoo la leeyahay hogaamiye daacada hogaamiye howlkar ah hogaamiye hal mar kama hadlin dagaaladaas ma dhiirigelin ciidamada taakulama muujinin isla markaana uma muuqdo nin deegaanadiisii dagaal uu ka socdo taa ayaa muujinaysa in uu ku faraxsan yahay in khawaarijtu ay markaasi ku sugnaadaan deegaanada hadda ay ku sugan yihiin tani waxa ay caqabad weyn ku tahay inta maamulkan fadhiidka ahi uu joogo Hirshabelle in ay adkaan doonto in kooxda khawaarijta ah laga saaro deegaanada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe taa oo ah in marka hore Cali Guudlaaw meesha la dhaafiyo